shirkan maanta aynu isugu nimid waa aad buu muhiim u yahay waxay inta ay ansixinayaan guurtii aynu subsanayno waa shir taariikh ah wuxuu taariikh u yahay muddadii ka dambeysay doorashadii ugu horreysay dawladaha hoose waxaynu gelaynaa doorashadii ugu horreysay ee inagu aynu ismaamulayno tala ahaan iyo dhaqaale ahaan marka cadow badanna waynu leenahay oo xagaldaacin u baahan marka waa arrin taariikhi ah mas-uuliyadduna waxay saaran tahay intiina halkaa fadhida sidaynu u shaqaynaynaa waxay ku xiran tahay sharci yaqaanada inuu joogaano waa sharcigaa lagu heshiiyey waxaan idinku yeedhay marka hore inaynu isxasuusino ka ballanno isla fahamno saacaddan iminka shaqaysa dalku soo u shaqaynaya iyadoo sharcigaa la raacayo dalku iminka marka doorasho la gala marxaladeedii ansaxay warqadii maalinta doorashada la qabanaya iclaamiyey dalku wuxuu galay xaalad doorasho sharcigu wuxuu inoo sheegayaa maalinta qofka mas-uulka ah ee doonaya inuu doorashada galo uu liiska keeno ka shaqo dowlado haya wuxuu doonaya ka hayee ee kaambeynka gelayaana wakhtiga uu soo rasaagaro shaqadii ka soo baxayo siyaasiga la doortay doorashada ku noqonaya xilkii uu hayay siduu noqonayo isa loo wadaayo yaa awoodda yeelanaya ninkii la doortay xildhibaanka ahaa meeyar ahaa xilligiisa u dhammaaday mar hore dhammaadeen meere waqtigooda iyo dawladaha hoose intaa waxaa lagu garaacayay adna looma kordhinin baarlamaano umuu kordhinin adna umaad kordhinin deetana waxay horta aynu helna waktigii doorashada inuu xaggeena ka diyaar garoobo dadka la dooranaya ee la doortay ee golayaasha ah ee meeradii may diin doorashada laakiin doorashadii baa diyaar garoobi weyday mar haddii diyaar garoobada iyagii ganaaxa mala hadda iyaga ku dhici mayso waxay ku dhacaysaa ciddii diyaarin weyday doorashada maantay doorashadii diyaartay marka warqadda la saxeexin lahaa waktigii waa la qabtay golayaashii dowladaha hoose kaambeynkii ba galeen laba waxay u gacan bannaan yihiin doorashada waxaase haddana loo baahanya in laga ilaaliyo hantida qaranka ay hayaan inaana si ay doonaan u isticmaalin oo awooddii magaalada hadduu haysto oo yidhahdo dadkan la tartamaya waxay nagu waajiba haddaynu dowladda dhexana inaynu ka ilaalino qofka doorashada gelaya wixii qaranka inuu ku isticmaalo qof kale markaa ninkii doorashada tartanka gelaya ama madaxweyne ha ahaado ama meeyar ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado mar hadduu doorashada gelaayo wuxuu la silmayaa walaaladiisa uu doorashada la gelayo isagoo aakhiradiisa adduunka suray inuu ilaaliyo kiiska madaxda ka sarreysana inay ku ilaaliso qodobadaas aynu u baahan inaynu isla fahmno waxaa intaa inoo dheer dalka meelaha qaarkood dhibaatooyin gaara u jira oo u baahan in aad looga wada taxadiro mas-uuliyadda koowaad mar haddii kala guri gelaayo dowladda dhexay saarantay marka waxaa la rabaa dowladdii dhexe inay awooddii ninka murashaxana aanay ku xadgudbin marka waxa weye ninkii murashaxa ahaa baarlamaankii hadduu yahay iyo hadduu yahay dowladihii hoose labada qodob tartamayaba laba xaq baa lagu leeyahy isaga in xaqiisi la ilaaliyo isaguna ninkii baawar hayey awood hayana inuu awooddii qaranka marka uu murashaxa yahay oo ula sinaado kuwa kale dowladda dhaxaa laga rabaa inay taa ku ilaaliso gobollada waxaa ka wakiila barasaabada xilka u weyn barasaabadu fuulaya habsami socodka doorashooyinka maadaama ay golihii deegaanka ku jiraan doorasho barasaabku wuxuu noqonayaa markaa guddiga ninka u madaxdaa inuu executive inuu arrinta fuliyo oo uu dadkii kala ilaaliyo oo wixii gardaran qabto oo kii la gardarayna u heliyo barasaabku waxaa looga baahan yahay inuu ku ilaaliyo in siyaasaddii commissionku wada doorashada ahayd la raaco qofka mas-uuliyaddaasi ay saaranta waa isaga ee qaranka uga wakiil isagay hoos yimaadaan booliiskii iyo ciidamadii isagoo raacaya tilmaamaha naag guddiga commissionku iyagaa hogaaminaya doorashada isagoo raacaya meeraha sharaxan ee xilka badan haya iyo xogayaha dowladaha hoose oo dowladda dhexe matala iyagaa ka mas-uula intay joogaan ee saxiixu socdo hantida qaranka waxaase la ogaanaya oo keer badan siinaya barasaab
iyo hanti dhowraha guud waa inay ilaaliyaan marka waxaa loo baahan yahay ninkii hadduu dadaali waayo tiisuu jeeta in laga qabto maanta fursad waxaad u hadday wada joogtaan aakhiradiina u tudha kaambey kala gala xaragada ku gala in badan baa joogteen ku ceeyoobina awooddii ugu riixaya ka koo tirsamaya yaa dhici awooddii ugu riixaya waa inoo dardaarma waa ragga sharaxana mayrada ah taasi waxa weeyaan waa buruska cusub ee galaynu ka wada socono maxaa soo kordhaya sharciga raacayna muxuu noqonayaa dheedka la geeyo kuraasida la geeyo in komishanka waqti dheer laakiin deegaanada hadday ka indhabeelaan shuruucda ku qoran dhammaanteen xil baa naga saaran war sharcigan jaamacad ma yihi hanti ma leeyahay waxaa shuruudo badan baa lagu qoray ninka deegaanka sharaxaya waxaana loogu sharaxay deegaanka hadhow xukumayaan bay danu tahay haddaad u qariso iska dhaaf Soomaaliland dee gurigaaga way dubaysaa farasaabkuna maanta waa awoodda koobaad ee gobolka waxa ugu horeeya oo budligeeda arrinta oo dambigeeda la xisaabta xisbiga gobolka jooga ayaa koob ka ah inuu ku ilaaliyo qofka sharciga ah hadduu xisbiga qaldamo waa bini'aadam laakiin mas'uuliyadda labaad komishanka qaranka markay soo gaadho in la iska lagu hubiyo maxaa qodobka ugu dheeraanaya haddaynu sharciga hirgelino oo aynu qodobada shuruudaha ku xidhan hirgelino waxa laga yaabaa inaynu wanaag kala kulno haddii kale dad aan waafaqsanin baa imanaya taasina waa doorashada sharcigeeda waxaan ku soo koobayaa shirkana isku nimid waxa weeye inaynu sharciga xasuusino inaynu ku talagalno xilka aan ku wada shaqeynno waanu gelin xaalad doorasho kaligeena ahay nimankii faranjeeyna hogaamin jiray xagan ka badhan jiraan bal hadday isu kay daayana waa aqli baan leeyahay haddaynu istaabinay oo doorasho labada isa saaran ay nagu cusubeen hore u jiraan galay sidaynu u ilaalinayna inaynu isku xusuusino sidaynu u wada shaqeynayna isku xusuusino inaynu ka heshino ra'yigiina soo jeedisaan ruuxaasayna hor yaalle oo qolada duruuftooda soo sheegto isu geyno deetana waxaan isku ognahay oo sharciga wixii aan ka weynay ee inaga duwan aynu xilli ka samaysano waxaanu ku yeelay warsaaka waxayna furay xilka inta leey darkiina xaaladaas ku kala soo bariga galbeedka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته